Gudoomiyaha degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe Hirshabelle Muuse Maxamed Keli oo la hadlay TV-ga Hirshabelle ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee degmada. Waxaana uu xusay deegaano ka tirsan degmada in ay saameyn ku yeelatay abaarta ka jirta dalkeena gaar ahaan Hirshabelle. Hay'adaha samafalka iyo dowladda dhexe ayuu ugu baaqay inay gurmad la soo gaaraan dadka ay abaartu saameysay. waxaan 104 ku salaamayaa reer Hirshabelle qaasatan telefishinka Hirshabelle halka aad joogteen waxa la yiraahdaa degmada Cadale waa meel yaani xaaladaheeda dabeecadda nolosha ay hadda aad ugu adag tahay laakiin xilliyada barwaaqada iyo ama xilliyada inta badan dadka wax badan dheer waa degmo leh dhul xeebeed leh xoolo leh beeraha leh oo xilli roobaadka leh waa dad tiro badan deegaan ka saaran xeebta 150 kilomitir waaye xagga marka loo kaco jawhar xagiisa ama dhulka bariga loo kacana 75 kilomitir ka saaran ama isu jira dhulkaas tirada dadka degan inkastoo dadweynaha la tirin waa dad xaddi ka baxsan 326 deegaan ay ka kooban tahay degmadu magaalo madaxdeedu waxay ka yartahay tuulooyinka ka waaweyn kana population badan 326 deegaanka ugu yar waxa noqon karta tuuladan maxayda magaalo madaxda degmada ah waa magaalo kalluumaysi dhaqaaleed wuxuu ku dhisan yahay kalluumaysi deegaanada kalena wuxuu ku dhisan yahay xoolaha nool beeraha sida noocyada dhammaan xoolaha nool way leedahay hadale xilligan hadda lagu jiro dadka iyo dunyadaba halis ku jiraan noloshooda waa mid halis haddii aan socod 10 kilomitir kala sameeyno waxaan soo arki doonaa dhowr kun oo xoolo ah oo baabaasan waxaad arki kartiin in dhowr kun oo xoolo ah oo baabaasan ilaa maadle waxa aad u mahadsan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka Hirshabelle na soo gaarsiiyay macaawineen kooban kuwaasi waa kuwa dadka nafta lagu celiyo laakiin kuwa ku filnay maaha waxaan dawlad goboleedka iyo dawladda dhexe ka rajaynaa iyo kuwa deeqaha bixiyaba dadka reer Cadale kaalmadoon waa in la kaalmeeyo way noolaan karaan haddii gacan la siiyo meel dhow joogan hadda waxaan rajaynaynaa in gacan la sii doono haddii la idmo sidoo kale gudoomiyaha degmada Cadale Muuse Maxamed Keli ayaa ka hadlay adeegyada caafimaad ee ka jira degmada umulisada fudud dhaawacyada fudud nafaqeeyaha fudud meelahaas aan joognaa dadkeena waxay kiis weyn oo caafimaad waxba kama qaban karaan deegaankeena waxyaabaha ka jira isbitaalada ka jira kiis caafimaad oo weyn waxba kama qaban karaan Mahad Axmed Cali Sow Hirshabelle TV magaalada Jowhar